asalaamu calaykum soo dhawaada saaxiibayaal ka waran hadday dhacdo adigoo hurdada ka soo kacay kadibna aad aragtay dadka magaalka joogan oo dhan inay isku beddeleen zombiya qof aad la xiriirtona aad weydo maxaad samayn lahayd muuqaalkeenna maanta waxaynu ka hadlaynaa filim lagu magacaabo alive filimkan wuxuu ku bilaabmay ninka lagu magacaabo john hurdada ayuu ka soo kacay wuxuu arkay qoyskiisii inay ka maqan yihiin guriga sidaa darteed wuxuu bilaabay inuu sameeyo wixii uu subax kasta samayn jiray oo ah inuu asxaabtiisii kula ciyaaro online-ka si kasta ha ahaatee saaxiibadii ayaa u sheegay inuu ogaado waxa dhacaya oo uu tv-ga daabado sababtoo ah dadka oo dhan ayaa isweerarayeen john wuxuu soo istaagay daaqadda si uu u ogaado waxa dhacaya iyo waxa ay dadku ka cabsanayaan wuxuu arkay dadka oo dhan inay cararayaan sidoo kale wuxuu arkay dadka inay ku dhaceen cudurka lagu magacaabo zombia oo ay isqaniinayaan kuwana iscunayaan waxaasoo dhanna si degdeg ah ayay u dhacayeen john wuxuu ku jahwareeray waxa dhacayo john wuxuu aad ula yaabay markuu arkay gabar hooyadeeda laabta gelisay kadibna qaniintay oo dhulka ku tuurtay si ay u dhammaystirto markan john wuxuu go'aansaday inuu albaabka furo laakiin si degdeg ah oo lama filaan ah ayaa nin u soo galay aqalka wuxuu john ka codsaday inuu guriga la joogo wuxuuna ku yidhi walaalkayga ayaa i qaniinay kadibna waan ka cararay john wuu garan waayey waxa uu sameeyo wuuna ka baqayay ninka wuxuu ninka u sheegay inuu dibadda u baxo laakiin john qof naxariis badan ayuu ahaa kadib ninkii wuxuu ka codsaday inuu suuliga isticmaalo john wuxuu markaasi maqlay wararka sheegaya in calaamadaha cudurka zombia ay yihiin dhiigbaxa indhaha iyo qaniinyo qofka ku taal john intuu yara fikray ayuu si degdeg ah u qaatay mindidii si uu ula kaco ninkii kadib markuu suuliga ka soo baxay john wuxuu ninkii ku arkay calaamad qaniiniya oo gacantiisa ku taal kadib wuxuu ku qasbay inuu dibadda u baxo ninkii isagoo dibadda u bixi rabo oo uu soo gaaray albaabka guriga ayaa calaamadaha isbeddelka ku bilaabmay oo wuxuu durbo bilaabay inuu isu beddelo zombia kadibna john ayuu weeraray john ayaa si xoog leh ugu dhagay ninkii kadibna bannaanka ku tuuray kadib zombia kale ayaa u yimid wuuna cunay habeenkaas john wuxuu albaabka dhigay oo uu ku celiyey qaboojiye wuxuu isku dayay inuu qof waco laakiin qadka muu shaqaynaynin mana awoodin inuu qof la xiriiro kadib warbixin cusub oo laga sii daayay tv-ga ayaa sheegaysay in kuwa badbaaday ama dadka badbaaday ay ku dadaalaan inay keediyaan cuntada ay cuni lahaayeen 60 maalmood john wuxuu bilaabay inuu eego raashinka u haray inuu ku filan yahay iyo in kale wuxuu helay raashin ku filan 10 maalmood oo keliya kadib waxaa kusoo dhacday fikrad oo ah inuu beero khudaar kadibna wuxuu ku fikiray inuu selfi galo laakiin fikrad soconaysa ma ahayn subaxda xigtay wuxuu soo galay instagram-ka si uu sawirkiisa u dhigo uu u helo qof caawiya oo goobtiisa yimaada laakiin ma jirin qad shaqaynayay waqtigan kale ayaa ah waqtiga saxda ah ee aad isticmaali lahayd teknolojiyadda si aad u hesho meel aad uga baxsato ninkii john ahaa wuxuu ku fikiray inuu taleefankiisa ku xiro kaamirada daroonka ah si uu qad u helo nasiib wanaag wuu ku guulaystay qadkii ayuu helay laakiin jaajarkii ayaa ka dhammaaday daroonkii dhulkan ayuu ku dhacay habeenkii wuxuu arkay naag booliis ah oo xaafadiisa ka tirsan oo ay la dagaalamayso zombia laakiin dadkii zombia ahaa ayaa naagtii weeraray markaas john wuxuu isku dayay inuu zombia ku qayliyo uu mashquuliyo nasiib darro zombia horay ayay u wateen naagtii john wuxuu arkay bistooladii naagta isticmaalaysay dhulka ku taal wuxuuna ku fikiray inuu bastooladaas isticmaalo laakiin wuxuu maqlay zombi albaabkiisa ku qaylinayay albaabka ay riixayeen si ay u galaan johnna wuxuu isku dayay inuu albaabka celiyo laakiin john waa laga tambadiyey kadibna john wuxuu u orday dhanka daaqadda si uu zombia daaqadda uga soo dhaco wuuna ka dhacay daaqadda fikirkiisii wuu shaqeeyey john wuxuu bilaabay inuu albaabka masaamiir ku dhejiyo si uu u nabadgalo kadibna wuxuu bilaabay inuu video iska duubo oo uu diiwaangeliyo sida uu maalmihiisii ku dhammaynayo maalintii 7aad john wuxuu ogaaday in zombia ay dhiigga uriyaan oo ayna dareemaan marka albaabka la furo john wuxuu dareemay niyad jab biyihii ayaa ka go'ay markaas wuxuu bilaabay inuu khamri cabo si uu maskaxda u dejiyo oo uu isfagaareeyo kadib wuxuu soo kacay maskaxdiisoo fresh ah john wuxuu bilaabay inuu si fiican u daboolo daaqadaha kadibna meel yar uu ka daabado zombia oo uu la socdo dhaqdhaqaaqooda markaas kadib john wuxuu galay xaalad quusasho ah oo uu wuxuu garan waayey waxa uu sameeyo isla markiiba wuxuu helay fariin ka timid qoyskiisii oo u sheegay inay fiican yihiin oo uu isagana naftiisa daryeelo kadibna wuxuu isku dayay inuu helo taleefan iyo qalab uu isticmaalo sida uu qad ku heli lahaa balkoonka ayuu soo istaagay si uu qad u helo laakiin wuxuu arkay zombia oo ay sugayeen inuu meesha ka soo dhaco si ay u cunaan john ciriiri badan ayuu dareemay wuxuu go'aansaday inuu bannaanka u baxo albaabka ayuu furay wuxuu arkay zombia kadibna nafta ayuu dhaafsiiyey isagoo socda oo xanaaqsan wuxuu la kulmay ninkii zombia isku beddelay oo suuligiisii galay wuu rumaysan kari waayey waxa dhacayo wuxuu u haystay ninkan inuu dhintay kadib aad ayuu u xanaaqay isagoo meesha ku qaylinayay wuxuu arkay dhammaan dariskiisa oo zombia noqdeen bannaanka u soo baxayeen si ay isaga u cunaan dhinac kasta ayay john ka weerareen wiishkii ayuu furay zombia kale ayaa ka soo baxay wiishkii dhammaantoodana way isku dhaceen wuxuu isku dayay inuu ka baxsado laakiin gadaashiisii waxaa ka daba socday mid indhoolaha zombi indhoolaha
kadibna wuu ka gambaday. Kadibna wuxuu soo galay qolkiisii, wuxuu soo xiray albaabka. Zombiyadii waxay maqleen codka albaabka oo waxay aadeen dhankii codka ka soo baxay. Waxay damceen inay albaabka furtaan, laakiin John wuxuu aad ugu dhagay albaabka si aysan u suurtoobin inay galaan. Maalintii 2aad, xarunta korontada ee magaalada oo dhan ayaa qaraxday, lararkii oo dhanna way wada dameen. Markaas John wuxuu go'aansaday inuu ugu dambeyntii isdhiibo oo uu isku dayo inuu isdaldalo. Laakiin markuu dhiman rabay ayuu arkay nalka laysarka ah oo lagu aadiyey. Markuu fiiriyey meesha uu ka soo baxayo laysarka, wuxuu arkay gabar aad u qurxoon. Markaas ayuu rajo helay. Gabadhii waxay ahayd mid diyaarsanaysa qalab ama hub ay isaga difaaci lahayd zombia. Gabadhii waxaa lagu magacaabaa Yuyu. Gabadhii Yuyu ahayd waxay bilowday inay fiiriso meesha uu degan yahay John, qaybta ay zombia ku badan yihiin iyo meesha ay ka joogaan. Kadib waxay isugu sheegeen magacyadoodii. Johnna wuu u dhowla cadeeyay gabadhii, wuuna ka helay. Gabadhii waxay isku dayday inay John xariga u tuurto si ay cunto u siiso, laakiin way ku fashilantay. Xarigiina dhulka ayuu ku dhacay. Kadib John wuxuu soo kiciyay droonkiisii si uu gabadha xariga u gaarsiiyo, uu u helo raashinka, wuuna gaarsiiyey, wuuna ku guuleystay. Laakiin mushkiladda soo wajahday waxay ahayd xarigii ay gabadha soo tuuraysay ayaa waxaa arkay mid ka mid ah zombia. Ninka zombia ahaa wuxuu ku fikirayay sida uu isticmaali lahaa xarigani uu ku fuuli lahaa dabaqa. Xarigii wuxuu ku xirnaa miiska, kadib xoog ayuu xarigii soo jiiday. Miiskiina gabadha ayuu ku dhacay, gabadhiina way suuxday. Zombiyihiina guriga ayuu fuulayay. Kadib John wuxuu arkay saaxiibtiisii inay khatar ku sugan tahay, wuxuuna isku dayay inuu wax ku tuuro, laakiin kuma guuleysan. Kadib wuxuu u isticmaalay daroonkiisa si uu jihada ka khaso ama uu u wareeriyo, laakiin zombiyihii gacanta ayuu ku dhigay daroonka. Isla markiiba waxaa soo kacday gabadhii, madax ayay wax kaga dhuftay zombia, sidaasna ayuu dhulka ku dhacay zombiyihii. kadibna John wuxuu go'aansaday inuu bannaanka u baxo si uu cunto u raadiyo. Wuxuu soo galay qolka ku xiga, wuxuuna helay raashin iyo waxyaabo kale. Wuxuu arkay mayd sariirta saaran, wuxuu rabay inuu ogaado qofka uu yahay, laakiin uu garan waayay. Kadib waxaa u soo galay ninkii qolka iska lahaa oo Juudaan ahaa, wuuna weeraray. John wuxuu u isticmaalay xeelad, kadibna nasiibkii ayaa saaciday, wuuna ka badbaaday. Wuxuuna markaas u cararay qolkiisa. John wuxuu gabadha siiyay shukulaatada Nutella iyo taleefanka gacanta si ay isla soo xiriiraan. Maalinta xigtay zombie oo dhan waxay u dhaqaaqeen halka ay ayaga dabaqa ka degan yihiin, sababtana way garan waayeen. Gabadhii waxay soo qaaday faas si ay isaga difaacdo, laakiin shanqar ayay samaysay. Dadkii zombie ahaana way maqleen shanqartii, waxayna u dhaqaaqeen dhinaca shanqarta. Laakiin John wuxuu sameeyay inuu taleefankiisii yeeriyo si ay zombie meesha uga baxaan oo ay meel kale aadaan, gabadhiina ay sidaa ku badbaado. Kadib John gabadhii ayuu soo wacay si uu xaalkeedii ogaado. Kadibna gabadhii waxay ku tiri, waan kuu fiicanahay xabiibi, waxba iguma dhicin. Intaa kadib waxay labadoodiiba go'aan ku gaareen inay meesha ka cararaan. Johnna wuxuu bilaabay inuu zombie weeraro, uu naftana dhaafsiiyo. Gabadhiina daaqada ayay ka soo booday, waxayna bilowday inay iska difaacdo zombie. Kadib waxay heshay bastoolad, iyadoo cararaysa ayaa si lama filaan ah mid zombie ah ayaa u soo baxay oo ku dhigay. laakiin John ayaa xilli fiican meesha ka soo baxay, wuuna ka difaacay. Zombiyihiina mid ayuu u laayay. Kadib gabadha ayuu gacanta ka qabtay, si wada jir ah ayay zombie u dilayeen. Zombiana waxay isku dayayeen inay meel kasta ka weeraraan, laakiin John ayaa wax badan ka laayay zombie. Ugu dambeyn, dagaal dheer kadib, dabaqa kale ay u carareen, waxayna fuuleen wiishka, waxayna aadeen dabaqa 8aad. Laakiin albaabada qolalka oo dhan way wada xirnaayeen. Isla markii waxaa soo gaaray zombie oo mar kale bilaabay inay weeraraan, ayagoo isku dayayeen inay albaabka furtaan. Ugu dambeyn, albaab ka mid ah ayaa laga furay, sidaas ay qolka ku soo galeen oo zombie ka badbaadeen. Ninkii qolka ku jiray wuxuu u keenay waxa ay cunaan iyo waxa ay cabaan. Kadib wuxuu ku yiri inay ciidamo ku wareegayaan magaalka oo dhan si ay dadka u badbaadiyaan iyo inay ayaga badbaadi doonaan. John aad ayuu u farxay, saaxiibtiisii ayuu laabta geliyay isagoo rajo ka buuxa. Laakiin John iyo saaxiibtiisii kuma kalsooneen ninkan. Kadib waxay ka codsadeen inuu cunto siiyo, cuntadii ayuu siiyay, laakiin ninkii khiyaanoole ayuu ahaa, cunto ayuu sun ugu daray si ay u suuxaan. John iyo saaxiibtiisii sidaas ayay ku suuxeen. Ninka waxba kama qasnayn, sigaarkiisii ayuu iska cabaayay. Kadib wuxuu bilaabay inuu gabadha jiido oo uu u geeyo xaaskiisii oo Juudaan noqotay, alla xaaskiisa jeclaa. Kadib gabadhii way soo naaxday, sidoo kale Johnna wuu soo naaxay. Ninkii ayuu bastoolada ku qabtay, wuxuuna ku qasbay inuu gabadha bannaanka u soo saaro, laakiin ninkii maba ahayn qof cabsada. Kadib xirigii ayuu u fasaxay si ay naagtii u cunto gabadha. Gabadhii waxay bilowday inay aad u qayliso oo ay caawimaad dalbato. Kadib hal mar ayaa gabadha codkeeda la waayay. ninkii albaabka ayuu furay si uu u ogaado xaaladda meesha ay marayso, naagta inay dharagtay iyo in kale. Laakiin si lama filaan ah ayay naagtii ku soo booday, laabta ayay gelisay, qoorta ayay ka shumisay, marka ugu dambaysa ay laabta geliso ayay noqotay, kadibna dhiigga ay ka cabtay. John iyo Yuyu
nolosha ay ka quusteen waxay go'aansadeen inay isdilaan. bastoolad ayay u dhiibtay, igu dhufo ayay ku tiri. isagoo raba inuu ku dhufto ayuu wuxuu maqlay codka diyaaradda. markaas ayaa xoogaa rajo dareemeen. kadib si xamaasad leh ayay dibadda u baxeen si ay zombiya u laayaan oo ay u cararaan dabaqa ugu sarreeya oo ay diyaaradda helaan. nasiib wanaag dabaqii ayay gaareen, laakiin diyaaraddii weli ma aysan soo gaarin goobtooda. kadib zombi ayagana waxay soo gaareen dabaqa ugu sarreeya ee ay joogaan John iyo Yuyu si ay u cunaan labadaba. John wuxuu bilaabay inuu ku tuuro xabado si uu isaga celiyo zombiya. kadib xabadihii ayaa ka dhammaaday, isla markiiba waxaa timid diyaaraddii ama helikabtarkii. zombiya ayay xabado ku furteen ilaa ay John iyo Yuyu ka fuulaan diyaaradda. John iyo Yuyu sidaas ayay ku badbaadeen, waxayna noqdeen dadka keliya ka badbaaday magaalka oo dhan. waad ku mahadsan tahay daawashadada quruxda badan. filimka hadduu ku cajab geliyey nagu soo biir oo asxaabtaadii la wadaag. mahadsanid.